السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Dr. Abuukar Yuusuf Warsame oo macallinka ah jaamacad ku taala waddankan Sweden sida magaalada Stockholm. Waxaan dhowr jeer hore idinla wadaagay barnaamijyo ku saabsan difaaca badda Soomaaliyeed iyo marxaladii ay soo martay dacwada naga dhaxaysa annaga iyo waddanka Kenya. Waxaan rajaynayaa Ilaahay hadduu noo gaarsiiyo usbuuca soo socda oo bisha 12 Oktoobar ay tahay in maxkamadda dacwada qaadaysa ICJ-da ay soo gudbiso go'aankii muddo la sugayay. Go'aankaas insha Allah aan rajaynayo inuu noqdo midna farxad geliya. Haddaba waxaan halkan ugu talagalay inaan ku qabto ama ku soo gudbiyo barnaamij yar oo gaaban oo la xiriira laba su'aalood. Maxaa laga filan karaa go'aankaas iyo maxaa xigi doona? Insha Allah waxaan rajaynayaa inay idinka caawin doonto inaad ama qiyaastaan ama ka qayb qaadataan sidii difaacaas badda Soomaaliyeed aan uga guuleysan lahayn ama dhamaystir fiican u noqon lahaa. Waa kana barnaamijkii daawasho wacan. Ciwaanka barnaamijkan presentationkan gaaban waxa waaye falanqayn go'aanka ICJ ka soo bixi doona iyo su'aasha labaad ahayd maxaa xiga. waxa aan qodobada aan isleeyahay aad ku soo koobtid waa 4 dhowrkan qodob oo kala ah inaan kormar gaaban ku sameeyo dacwadda badda iyo maxalada ay soo martay kadibna inaan aan saadaalino dacwadda hortaala maxkamadda go'aanka natiijada laga filan karo iyo maxaa xigi doono aan isleeyahay iyadan aad ku soo aan idinla wadaago tallaabooyinka aan filayo inay xigi doonaan iyo waxa nala ka filan karo iyo waxa Kenya xeeladaha isticmaalaysa si ay u guulaysato arrimahan dacwadda oo marar badan aan hore uga hadlay laakiin haddana aan xusuusin aan ugu soo celin doono insha Allah iyo gunaanad kooban sida ka muuqata dhinaca midigta waxa ka muuqda looga sawirkan waa urur yaana dhihina koox group aan isku bahaysanay Gahayr Engineering Groups. Gahayr Engineers Group waxay koobtay aqoon-yahanada kulliyadda injineeriya waqtiyo badan kala duwan ka baxay. Fikirkaana wuxuu ka dhashay runtii aan ku soo gudbinay barnaamijkan golahaas buu ka dhex dhashay. Waayo anaga dhan waxaan nahay ummad aqoon-yahan Soomaaliyeed oo ku soo bartay canshuurtii waddanka markaas mas'uuliyad baan iska saarnay barin barnaamijkan iyo barnaamijka la mid ah aan soo gudbinay baraarujintaas ayaa ka dambeysay inaan barnaamijkan soo gudbiyo sida loola xiriiri lahaa ama xog looga ogaan lahaa insha Allah barnaamijka gabagabadiisa ayaan idin sheegi doonaa haddii Alla idmo. Sidaad u jeedaanba meeshan kore waxaa ka muuqda 3 qaybood ee badda oo ku salaysan xeerarka adduunka ee badaha United Nations Convention Law of Seas taasoo ah in 3 qaybood badda qaybta koowaad ah oo territorial sea oo ilaa 12 nautical mile ah waxaad xaq u leedahay oo waddankaas uu xaq u leeyahay waddan kasta inuu wixii kor maraayo diyaaradaha noqoto ama maraakiib badda dusheeda ha noqoto ama wixii badda hoosteeda ku jira ayuu wuxuu leeyahay madax bannaani guud oo gaar ah. qaybta ku xigta waa qaybtan la yiraahdo exclusive economic zone ama qaybta aaga dhaqaalaha oo ilaa 200 nautical mile ah. waxaa meeshaas aad leedahay wixii badda marka badda dusheeda mara iyo wixii badda hoosteeda ku jira laakiin hawada dusha ah ma lihid xuquuqdeeda madax bannaani gooniya ummadda kale kama xigtid. intaa wixii ka dambeeya waxa loo yaqaan extended continental shelf meeshaasna waxaa kaaga haraya wixii badda dusheeda leh dadka ummadda kale kama xigtid ama kalluumaysa noqoto laakiin wixii badda hoosteeda ku jira ayaad xaq u leedahay oo natural resource-ga ah. wixii high season waxa waaye badda wixii ka dambaysa qof walba u furan tahay. haddaba waxay markii xeerarkaas la jideeyay 1982 ay soo baxeen muhiimadaha kala xadeynta badda waxa loo yaqaan delimitation waana meeshaas marka Soomaaliya Kenya ay ka soo bilaabatay asalkeeda in qolo walba ay tahay xuduudeeda sida ay tahay si loo jeexo. Soomaaliya xuduudeeda waxaan aaminsanahay ama ay tahayba ka bilaabanaysa dhulka dhinacaas koonfur bari aadaysa xariiqaas guduudan oo ku ah ku qotoma dhulka ilaa gaaraya maxaan ku raahdaa qarfoofka badda koonfur bari Tanzania afkeeda gaaraya
kenyana waxay aaminsan tahay in loo cabiro qaabka ah midigta xariiqa ah hurdiga ah oo ah xariiq dhinac socda dhulbaraha oo parallel ah oo toos koo furo aadayo meeshaas ayaa waxaa ka soo baxday isqabsigaas ayaa waxaa ka soo baxday in dhul 100,000 kilomitir square ah ka badan oo ay ku jiraan shidaallo iyo maxaan ku rahdaa gaasas dabiici oo kale oo fara badan in muran badan ka dhasho waana meesha aan dacwadii geynay 2014 bisha Agost in maxkamaddu ay noo kala xukunto oo xariiqaas saxda ah ay go'aan ka gaarto haddaba su-aasha isweydiinta waxay tahay annaga keena muxuu ku salaysan yahay annaga dacwadeena wuxuu ku salaysan yahay xariiqa qaabka loo cabiraayo oo la yidhahdo equidistance line-ka wuxuu ku salaysan yahay qodobka 15aad xeerkaas aan hore usoo sheegay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa qaybteeda badaha xeerkaasoo sheegaya labadii wadano kasta oo isdhinac yaalla ama iska soo horjeeda haddii ay jirto xuduudahaas aysan calaamadaysnayn haddii aysan jirin heshiis gooni ayagoo ay gaareen waxaa lagu cabirahayaa oo wax lagu kala goynayaa waxaa la yidhaahdo marka laga hadlayo territorial seaga median line or every point oo kaasoo noqonaya equidistance iyadoo laga soo cabirayo meesha badda biyuhu ay ku dhammaadaan waan tusi doonaa musawir gaaban oo idin sahla inaad fahamtaan cabirkaasi qaabka loo cabiro laakiin waxaa la raacsiiyey haddii aysan jirinin waa inaysan jirinin historic title lahaansho subarloogo iyo sharciyo waraaqa sheegaya in dhulkan marka hore iska lahaayeen Kenya keyskan oo kale ama aysan jirinin xaalado gooniya oo kalifahaya in ay dhulkan qaabka loo cabiraayo oo wax ka bedelayo equidistancega sida jasiirada iyo wax la mid ah marka qaybta territorial waterka qodobka 15aad baa yaa xadidaya qodobka 74 iyo 75 wuxuu ka hadlayaa EEZ-ka exclusive economic zone-ka ama aaga dhaqaalaha iyo qaybta qalfoof badeedka oo labadu waxay sheegayaan in loo noqdo sharciga qodobka 38aad maxkamadda adduunka kaasoo qeexaya in hab equidistancegan wax lagu kala cabiro marka arrin ugu maaha qaabkaas adduunyada markii labada wadano noocan sidan xaaladan oo kale wax u kala cabirtaan qaabkaas loo cabiraa qaabkan wuxuu rabno in loo cabirana wuxuu ku salaysan yahay sharcigaas qodobkaas 15aad oo sheegaya equidistancega line haddaba haddaan tusaale idinka siiya qaabka example yar idinka siiyo tusaale qaabka loo cabiro kasoo qaad laba wadan A iyo wadan B inuu yahay Soomaaliya Kenyan uu yahay A waxaa la sameynaya marka dhinacooda ilaa 50 kilomitir anaga dhinaca ilaa 50 kilomitir ayaa point la qaadanaya pointkaas ayaa waxaa laga cabirayaa xariiqa tooska ah oo ku qotoma 90 digriga ah oo toos loo cabirayo waddankaasna sidoo kale waa laga soo cabiraya meeshay ku kulmaan ayaa la calaamadeynaya 100 kilomitir baa haddana la soconaya waa B iyo F sidoo kale la sameynaya qaabkaasaa lagu wadaya markaasaa waxaa soo baxaya xariiqaas ah equidistance line geographically waa sahlan yahay waana wax aad loo isticmaalo balse waxaa jiri kara in xaalado wax ka bedelaan sidaan sheegay oo kale ah special circumstance ama jasiirado ama qaabka dhulka xeebta u samaysan yahay ama qaabka dhulka waxaa laga yaabaa inuusan sida hadda streetka u yahay kale usan ahayn haddaan tusaale marka idin siiyo wadamada Chile iyo Peru ayaa saas kale dacwadaan oo kale haysatay qaabka lagu kala cabirayna wakaas xariiqaas u jeedaan oo kasoo bilaabanaya dhulka ilaa imaanaya badda laakiin xaalado ayaa waxay khasbeen in xariiqii la kala bedelo annaga meeshaan Soomaaliya dacwadeena ka codsanaynay single maritime measurement hal xariiq oo toos ah oo isku xira saddexda qaybada baddaba meeshaan saddexda qaybada badda waa la kala gooyay oo qayba si gooniya ayaa xaaladeeda loo fiirshay oo dhulka markii laga soo bilaabay ilaa point A markii la gooniya noqotay point A to point B na si gooniya noqotay point B to point C na saas qalooc soo noqotay marka principally waa la isku raaci karaa qaabka laakiin qaabka farsamo ahaan loo cabirayo ayaa wax ka bedelaan karaan waan idin sheegi doonaa waxa meelaha ay waxyaalaha sababi kara oo xaalkeena Soomaaliya khuseeyo kale sida meesha laga soo bilaabayo cabirka ayaa muhiim ah taasna wax yar baan ka oran doonaa slide ka soo socda
marka sidee xaalka go'aanka ICJ-du noqon karaa go'aanka ICJ-du wuxuu noqon karaa in nala ku raaco qaabka Soomaaliya u rabto oo xariiqi u noqdo waa sidan Ilaahay ka rajeynay inuu noqdo xariiqaas tooska ah oo dhulka ku fadhiya oo ilaa koonfur bari u socda ilaa uu ka gaarayo continental shelf-ga waxa kaloo dhici karta oo Ilaahay ka rajeynay inuusan u kasbin in sida Kenya u rabto loo cabiro marka waa labada extreme in saan rabno loo cabiro iyo sida ay rabaan loo cabiro laakiin waxaa dhici karta mid u dhaxeeya oo xaalad wax isu celisa ayama ayagana wax laga anagana naloo xukumo balse wax la xeeriyo ama wuxuu la basariyo xeer jajaba taasoo noqon karta ama xagga hore in wax laga bedelo for example in xariiqa dhinaca hore oo territorial waterka wax laga bedelo oo xoogaa dhinaca loo soo qalloociyo meeshaasoo la tixgelin kara kalluumaysatada iyo arrimo kale ama dhinaca u dambaysa wax ka bedelmi karto oo dhinacan dambe oo ama EEZ-ka ama continental shelf-ga ayadoo la fiirinayo sida hadda inay waddankii uusan landlock uusan noqon uusan ka xirmin ama uusan noqonin waddan culays kale kusoo kordho markii qaabkaas loo xukumo marka adduunyada xaqna waa raadisaa xalna waa raadisaa maxkamaddu waxay tahay hawsheeda noocaasa ma lihi kanaa saxsan ama kaasaa saxsan balse waxyaalaha dhici karo baan ka hadli karaa in oo la qiyaasi karo inay imaan karaan xariiqaas marka la cabirayo waa saddex weji buu leeyahay wejiga koowaad waa meesha wax laga soo bilaabayo diskan equidistance line waa in horta xariiqi la sameeyaa laakiin xariiqa la sameynayo waxa ugu muhiimsan marka meesha laga soo bilaabayo dhulka waxa loo yaqaano land terminus point Kenya waxaa jirta heshiis ay ku doodayso oo leedahay sharcigan 1924 la sameeyay oo gumeystii Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa kala sixday wuxuuna sheegayaa meesha xadka Soomaaliya buntada ku dhamaado kaasoo maabkii Soomaaliya dacwadan la gudbiyay Kenya kay gudbisay kan gudbanaba ku jiray Kenya waxay sheegaysaa in meesha cabirka dhulka uu yahay uusan xeebta badda saareen meesha badda iska galaan dhulka laakiin uu xoogaa dhinaca dhulka kuudkaas oo BP 29 la yiraahdo border point 29 wuxuu saaran yahay yaala dhulka meesha qalalan anaguna waxaan rabnaa in laga cabiro biyaha hirkooda meesha ku dhamaado oo meeshaas aan leenahay laakiin waxaa la isla gartay oo macnaha jirtayba in haddii dhagaxa laga dhisi lahaa kuudkaas meesha badda xeebta ah laga baqa inuu hirkii biyo qaadaan sidaa daraaddeed ayaa waxaa dhagaxa laga sameeyey kuudkaas calaamadda waxaa laga sameeyey meel qalalan oo dhulka xaggiisa ah faraq badan uma dhexeeyo sida looyaradeena meesha ka sheegeen xataa haddii qaabkaas Kenya hadda u rabto oo ah in loo durko dhinaca dhulka wax badan oo faraq kuma jiro oo waxay yiraahdeen waa in kulliba xariiqu uu soo maraayo xariiqan kale oo Soomaaliya uusan waxba ka bedelaynin dhinaca ballarka laakiin dhinaca dhererka haddii gadaal laga soo bilaabo haddii laga soo bilaabo 50 mitir 100 mitir waxaan dhammayn baa laga yaabaa inuu asalkiisu yahay marka taas looyaradu waxay yiraahdeen waxba kama qabnaba kabacdi waxaa la fiirinayaa ma jiraan xaalado khasbaya in xariiq wax laga bedelo sidaan ii sheegay ama ha noqoto xaalado kalluumaysatada ama ha noqoto xaalado maxaan ku radaa accessibility ama meesha xadka meesha ka galaysa Kenya dhulka waxyaalaha aduu keeni kara in xariiq wax laga bedelo jasiirada ma jiraan shidaal iyo waxaas la qoday ma aha lama dhigi karo waa special circumstance or relevant circumstance ma aha laakiin hadday jiri karaan xaalado markii la helo xaaladahaas ama la waayo inaysan jirinba ayaa xariiqii professionalka ahaa oo kowdii hore la sameeyey final laga dhigaya oo waxaa la sameynaya xariiqii la hirgelinaya sida loo arko xalka inuu yahay si loo qanciyo labada wadanba marka taasna muddo qaadan kartaa muddo maxaan ku radaa 10 sano qaadan kartaa sida haddaba dacwooyin kale oo kiisas noocaas la mid ah Nicaragua iyo Colombia 2012 waa la xukumay ilaa haddana weli wuu socdaa haddaba maxaa dhici kara markii go'aanka uu soo baxay insha Allah 12 bisha Kenya waxaa muuqata inaysan ku qancaynin go'aankaas haddii laga wada xukumo iyo haddii wax yar xataa loo bargooyo oo xataa wax yar qaab farsamo ah wax loogu reebo labadaba waxay ku doodi doontaa inay maxkamaddu aysan cadaalad falinin ayagoo ku doodayeen ama ka maqnaanshihii dacwad ay ka maqnaayeen oo loo ogolaanin in dib loo dhigo ama ay leeyihiin waxaa ku jira xaq ma ahayn oo looyarada Soomaalida iyo Soomaalida si gooniya loogu eexday bay ku dacwoon kartaa mid baan laakiin aan filaynin in Kenya ay
gabi ahaanba diido tiraahdo haba yaraatee ma aqoonsin maxkamadan go'aankeeda waayo ma dhihi karto go'aankan maxkamadda waa ka mid wayna ka qayb qaadatay dacwada inteeda hore waxaysan ka qayb qaadan keliya qaybtii ahayd dhageysashadii u dambeysay horey waddamaa isku dayay Nigeria markii Cameroon laga xukumay waa isku dayday inay diido ama ka lagu jiido Libya sidoo kale markii Chad loo kala xukumay waa ka lagu jiiday laakiin cadaadisyo badan oo adduunyada ay saareen sida wadamada Faransiiska iyo Ingiriiska iyo Mareykanka iyo ayay ku khasbanaadeen inay fuliyaan wixii lagu heshiiyey midda kale Kenya culayskii saari karta waxay tahay Kenya waa xubin aan joogtada ahayn 15 waddan bay ka mid tahay oo golaha ammaanka qaramada midoobay bishan Oktoobarna waa madaxweynaha bisha golahaas amniga qaramada midoobay marka taalafkooda waxay ku noqon kartaa embarrassment ayadoo organka ugu sarreeyay UN-ta oo ah ICG-da inay tiraahdo go'aankeeda maba aqoonsani ama maba fulinayno marka laakiin inay waxyaalo lagu ka cagjiidayo iyo dacwo iyo inay bilowdo iyo sidaan arki doono inay loobi garayso in loobi garayso ama ay si u boolo xoftayso ayaa dhacaysa haddii aan leedno sidaan rajaynayo ay Kenya farsamo kale uma fura waayo sharciyan in laga guulaysanayo u badan tahay waxay u badan tahay in midda kale inay iyagoo Kenya lafteeda bish soo socota sanadka soo socda doorasho galaysa marka dowladda lafteeda inay murqaheeda muujiso ama dadweynaheeda local political consumption si ay ugu muujiso dowladda Kenya shacabkeeda inay waddanka u difaacayso marar badan ay madaxweynahoodii ay meelaha ka sheegeen hal inji oo waddankeena ku gorgortay lama qaadan karo inay ay sii wadaan maxaan ku rahdaa buuqaas iyo rhetoricas bay u badan tahay weliba ayagoo ku andacoonaya in baarlamaankooda uusan u ogolaan iyo afti loo baahan yahay in loo qaado si ay u ogolaadaan in wax laga bedelo xuduudahaas waayo sharcigooda article 5 qodobka 5 ee xuduudahooda ayaa dhigaya noocaas waana sababtaan waan marka u dambaysa waan kusoo guuranidi doonaa daaladne muhiimadda uu leeyahay baarlamaanka ee sharciga waddanka uu leeyahay intaas haddaan kaga gudbo qaybtaas go'aanadii ah maxaa kale oo Kenya maxay kaloo isticmaali kartaa waxay isticmaali kartaa xeelado badan oo si ay uga guulaysan lahayd ama at least u lahayd qaab ka bedelan go'aankaas maxkamadda ama annaga noogu khasbi lahayd inaan waxyaalo badan ama ka tanaasulo xeelado badan bay isticmaashay Kenya horena isticmaashay xeeladahan hadda koorna waa la wadaagay haddana waa ku soo celinaya iyadoo si kooban ah horta Kenya waxay isku dayaysaa inay dispute-kan ama murankan u bedesho conflict oo waa sababta buuq iyo dagaal iyo nabadgelyo xumo in waddanka ka dhalato ay qayb ka tahay arrimahaas ay wado oo badda lala xiriirinayo in waddankii waddan conflict ka jiray tahay conflict waddankeena gudihiisa iyo conflict Kenya anaga dhexdooda ah ama xuduudaha noqdo ama mid ka baxsan baa noqdeen midda kale waxay isticmaalaysaa wax la yiraahdo soft power approach ama qaab wax magarato doqon wax magarato ahaan lagu soo jeediyay qaab kale u gala habkan waxaan u soo jeediyay fikradahan aqoon-yahano 40 ku dhow ay Kenya shirisay dhowr sano ka hor ayaa u soo jeediyay 8 qodob 8 qodob baan marka mid si gaaban u dul maraya qaarkood waa u fuleen inta badan qaarna wali waxaad moodaa inay yihiin actual waxaad taagan oo ay u baahan inaan anuguna la nimaano istaraatiijiyadii ama ugu hortagi lahayn ama isaga caabin lahayn ama wax ka duwan oo ka fiican baan u imaan lahayn Kenya waxa lagu taliyay horta waddankeeda dadkeeda inay ku guulaysto maskaxdooda iyo domestic consistency-ga macnaha waa mid haddaan sheegayo doorashada iyo marka hadday ku jiraan inay waddankii tusaan inay yihiin dad waddanka u difaacaan oo xuduudiisa difaacayo ayagoo og inaysan waxaan xaq u lahayn oo waxay ku doodayaan ay tahay dhul Soomaaliyeed waxaa dhinaca socota inay maxaan ku rahdaa dhulkaas ay haystaan ama joogaan inay ku sii jiraan oo wax la yiraahdo effective occupation inay haysasho u wadaan si booli kugu raagtaa hantidaada ay ka mid noqotaa haysashadaas iyo si joogitaankaas ciidankooda iyo maxaan ku rahdaa siyaasiyiintoodaba mar walba hadal hayaan ciidamadoodana joogaan oo dhinaca biyaha iyo dhinaca barrigaba sida maxaan ku rahdaa Jubbaland iyo deegaankaas oo dhan inay maxaan ku rahdaa muujiyaan inay yihiin force iyo awood aan looga maarmin joogitaanka meeshaas inay lahaansho u sahlayso ay meeshii ku qaadan doonaan maaha wax koleyba muuqda ama u sahlan laakiin waa qayb ka mid ah lagula taliyay effective occupation-kaas inay sii wadaan Kenya waxa kaloo ay aad u isticmaashay oo haddana waa ku guulaysatay haddana waxaan isleeyahay waa sii xoojin kartaa fikirkan ah
in Soomaaliya lagala dagaalamo dadkooda elite-ka ah lagala dagaalamo wadaninimada iyo Soomaalida dhanba lagala dagaalamo wadaninimada oo ayaga la iska horkeeno si aysan u adeegsan uusan noqon arrinkan issue-gan badda iyo wax Soomaalidu ay isku dhiirigeliyaan oo wadanimadooda ku soo noqoto marka way ka muuqataa isqabsigeena iyo waxyaalaha la abuuray tensionkaas la abuuray inuu yahay qodobkan saddexaad mid ka mid ah waxyaalaha Kenya horay lagula taliyay haddana u fulay haddana aan filayo inay sii wada doonto qodobka afraad ee lagula taliyay Kenya waa in ay ayadoon diidanayn oo aqoonsan inay tahay inay fulinayso sharciga international law-ga inay haddana farta ku fiiqdo inaysan maxkamadan adduunku inay tahay mid qaab gumaysi ka haray oo aan u danaynaynin Kenya ama aan ku habboonaynba Africa in wax lagu xaliyo dhibaatooyinka Africa ka jira oo yihiin wax western anglo-saxon wax la yiraahdo system ku base garaysan hadda taasna hadda wax soconaya maaha waayo waa qayb ka mid ah international organiska go'aankeedana waa mid fulaya insha Allah hadii aan qodobka shanaad waxay Kenya maxaan ku raadaa lagula taliyay inay isticmaasho inay soo bandhigto geopolitical interest of Gulf states sida wadamada gacanka Carbeed iyo danahoodana soo dhexgelisa arrimahan waa nimada muuqato hadda Qatar inay tagto oo heshiis amni la saxiixato shirkadan inay Talyaanigu leeyahay boqolkiiba 5 Qatar baa iskala marka interest Gulf in meesha la soo gasho ama anaga pressure han u noqoto ama ayaga wax xinayo wax la qabanayo ha noqoto labada dhinacba way noqon kartaa waan lagula taliyay inay ka faa'iideysto arrinkaas arrinka lixaad waa inay kambaniyada oilka iyo maxaan ku raadaa ayagana iyadoo marna la eedeynayo marna culays lagu saarayo in resource sharing wax la yiraahdo kambaniyada oilka laga dhaadhiciyo inay Soomaaliya culays ku saaraan inay waxaan resource sharing la sameeyo oo heshiis noocaas barnaamij noocaas oo hadda kor baan ka qayb galay oo lagu soo jeedinayo waxaan inta la iska hilmaamo dacwadan iyo buuqaan iyo resource la share gareeyo waana meesha xataa arrinkan blue economy oo la xiriiro oo bal in oilkaas iyo interestkaas la isku xiro way imaan kartaa sidoo kale iyadoo la eedeynayo leeyahay oil companies ayaa arrimahan ka dambeeya ama Soomaaliya maalgelinaya in dacwadan la geeyo laakiin dacwada waa soo dhamaatay taas wax ka qabasho ma laha qodobka toddobaad oo Kenya isku dayday kuna guul daraysatay waa inay waxaan u soo guuris African forces iyo African organizations hoos keento dacwadan si maxaan ku raadaa Soomaaliya culays loogu saaro in maxkamadan iyo dacwadeedii ayadana lagu xalinin si kale loo xaliyo marka waana sababta Kenya ay madaxda uga tahay ururkan maritime security-ga la yiraahdo oo oceanka badahan East Africa iyo loogu talagalay ururo badan sida IGAD ka mid tahay waxyaalo badan baa marka ay Kenya dhinacaasna ka buunbuuninaysaa oo rabto in Africa Soomaaliya ku gacan maroojiso ama ku gacan bidixayso si maxaan ku raadaa loogu khasbo inay mowqifkeeda baddan wax ka bedesho laakiin taasna hadda soo far kuma guuleysan insha Allah inaysan ku guuleysana waan rajeynayaa anaguna aan u feejignaano tan ugu dambeysaan isleeyahay waa mid hadda taagan waxay tahay Kenya waxa lagu la taliyay inay ku guuleysato ama ay qanciso wadamada Security Council-ka ah ku jira shanta wadan oo super power-ka ah in maxaan ku raadaa haddii waxaan dacwadan laga xukumo Kenya inay ku noqonayso wax dhibaato u keenaysa entire Indian Ocean wadamada baddan ku taadsan oo dhan Tanzania ha noqoto Mozambique ha noqoto Kenya kaliya maaha Indian Ocean ka dhammaanaha inay noqon doonto meel bahal galeen maxaan ku raadaa dhibaato u taagan marka inay haddana dee fursadaas wayba joogaan way haystaan inay waxaas u loobi gareeyaan oo UNT ka mid yihiin laakiin waxaan rajeynayaa anaguna xubnaheena noo jooga UNT uu hogaaminayo ambassador Abukar Baalle iyo tiimkiisu inay ku feejigan yihiin oo aysan ayagana ku yareen loobigaas iyo haddankaas siyaasadda iyo sidii loo kala jijiidan lahaa xubnahaas international power-ka ah gunaanadkii waxaan kusoo koobayaa saddex qodob oo kooban qodobka koowaad waxa waaye horta dacwadan maaha dhegeysiga inay markay Kenya ka baaqsatay macnaheedu ma aha in sidaan rabno loo xukumayo oo ay tahay sida dad badan oo media ka hadlay ay leeyihiin waa forfeit annagana loo xukumayaa wax haba yaraata laga soo qaadayo Kenya dacwada dhinaceeda maaha haddaba taas waxaan leeyahay waa arrin aan sax ahayn oo nagu dhalin kara inaan lafkeenu hoosaasiyo reality iyo waxa dhici kara iyo waxa go'aan kusoo noqon karo
sababta aan u leeyahay taas waxay tahay qodobka 53 ee maxkamadda adduunku wuxuu leeyahay markii wadamada ka mid dacwada uu ka soo muuqan waayo inuu ama uu awoodi waayo inuu difaacdo kiiskiisa uu ka baaqdo wadanka kale wuxuu xaq u leeyahay in maxkamaddu inuu codsado maxkamaddu inay go'aan ka gaarto iyadoo dhinaciisa u xukumaysa laakiin qodobka waxaa la sii raaciyay farqadiisa labaad waa in laakiin maxkamaddu ay ku qanacdaa in dacwadaas ay tahay ku salaysan tahay run iyo sharci macnaheedu dacwadii Kenya iyadoo qoraal ay taallay qoraalkaas baa laga jawaabayay oo garsoorayaasha maxkamadda ayaa booskii looyaradii Kenya iyo dacwadda ay ka maqnaayeen buuxiyey oo waxay weydiinayaan su'aal kasta oo sharciga iyo facts runta ku salaysan waana sababta Allah naxariista injineer Saalixi iyo tiimkeena maxkamadda iyo looyaradeenu ay ugu mashquulsanaayeen ka jawaabidda su'aalo badan oo loo soo gudbiyey oo garsoorayaashu soo weydiiyeen taas waxay kutusaysaa marka inaysan Kenya markay imaan weyday dacwada inaan la waran faylkii waa la laabay waad guulaystay laakiin kiisaska iyo waxyaalihii ay ku dacwotay Kenya qoraalka mid looga jawaabayay marka haddii sidaan sheegay cabirka hore kusoo sheegay kor wax kusoo sheegay iyo wax ka bedelan soo baxaan iyo waa inaad ogaataan maxkamaddu waxay fiirinaysaa xaaladaha jira kiiskana waxay ka soo qaadaysaa u gashay Kenya iyadoo fadhiidaha kolo meesha joogta ayay u gashay waayo waxa yaala qoraalkoodii oo in laga jawaabo mudnaa qodobka labaad oo waxaan dhan isku soo koobaya waxay tahay waxa hubaala inaan ka guulaysanayno Kenya iyo cid kasta oo isku dayda inay wadankeena xuduudiisa iyo hantidiisa kusoo xadgudubto haddii muruqeena iyo maskaxdeena aan midayno aqoon-yahan ahaan bulshadoo dhan siiba aqoon-yahanka iyo waxaan usoo meeshaan u xusay iyo warbaahinta waa labadan meelood aan isleeyahay way gaabis bay ahaayeen oo marka noqoto Kenya iyo waxa ay ka qaybtooda ay ka geysteen aqoon-yahankooda iyo warbaahintooda labadaasba aad baan uga gaabin runtii waa laba qaybood bulshada ka mid ah isleeyahay dhaliishay leeyihiin warbaahintuna aad moodo inay bombooniyaan Kenya waxay sheegto aqoon-yahankeenuna aanan wax badan aanan u istaagino sida aqoon-yahanka Kenya u shirisay kale aanan isku dayin xataa inta la isu yimaado fikrad midaysan iyo istaraatiijiyo midaysan lala yimaado marka waa dhaliil intii wax tartayna Allah khayrkooda siiyo wixii aan la talin aan ka gaabinayna waxaan isku dayaa insha Allah inaan ku gubaabinayaa inaan tarno aan u fajignano waayo waxaan waa bilow dacwadan waa mid bilow ah xuduudahan iyo waxaan mid waxa imaanaysa Soomaaliya iyo Djibouti Soomaaliya maxaan ku raadaa Yemen xadka Soomaaliya iyo Ethiopia tan Kenya muddo soconaysa marka waa in horta waxaas dhan dibna loo fiirshaa dastuurkeena la adkeeyaa sidaa qodobka hore aan ku sheegay Kenya dastuurkooda cadeynaya waxa xadkooda wax ka bedeli kara annaga dastuurkeena in xuduudaha wax laga bedeli karo baarlamaanku ma sheegayo qodobkaas uu ku jiray sharciga 60kii qodob sheegaya in boqolkiiba 80 super majority 5 meelood 4 meelood ay ansixiyaan haddii xuduudaha wadanka wax laga bedelayo waxaan rajeynayaa qodobkaas in lagu soo daro dastuurka ku meel gaarka ah hadda dib loo fiiri doono haddii aan leedno marka la isku soo noqdo baarlamaanka cusub la dhiso haddii aan leedno ugu dambeyn ururkan Gahayr Engineers Group waa dhalinyaro macallimiin iyo ka qalin jabiyay kulliyadaas Gahayr ciwaankooda waa kaas emailkooda waa kaas wixii fikrad iyo talo ah waan soo dhaweynaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.